بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومحي waxa gabadhu ay kugu jeclaanayso hadii aad u diido oo aanad siin waa wax fudud laakiin waxa muhiim ah inaad garanayso sida loo adeegsado waayaan jaamacan waxayaan dhalad ku soo dhawaada mowduucan ugu horeyn gabadha waa inaad u diidaa oo ka ilaalisaa xiisaynta badan markasta inaad tusto inaad jeceshahay inaad ku faraxsan tahay inaad xidhiidh la leedahay inaad jeceshahay la hadalkeeda iyo waxyaabaha la midka ah laga yaabaa hablaha qaar inay dhahaan maxaad noogu diidan tahay in raggu naxiiseeyaan waa su'aal macquul ah laakiin hablaha badankoodu ma fahansanaa haddii ninku si ka badbadisa u daneeyo gabadha inay ka xiisa dhacdo xidhiidhkuna sidaas ku burburo si kale haddii aynu u dhigno in ninku kaa yareeyo xiisaha iyo danaynta badan adiga ayay dani kuugu jirtaa waqtiyada badankooda haddii aad soo wacdo markasta haddii aad ka sheekayso jacayl sida ay qurux badan tahay iyo arrimo guur waxaad u muuqanaysaa qof bilaa qiimo ah tan micnaheedu ma aha inaad noqoto mid qallafsan oo bilaa naxariisa qofka markasta aad adayga muujiya dadku way ka fogaadaan maadaama ay jecel yihiin naxariista sidaas cagsigeeda qofka siiya naxariista xaddaafka ah way ka caajisaan oo ka firdhadaan marka aad wada joogtaan gabadha ama koolka ka wada hadlaysaan marmar hadalkaaga soo dhexgeli ammaan ama wax jacayl ku saabsan laakiin inta ugu badan mawduucyo guud kala hadal si dabiici ahna ula dood waa inay isu miisaaman yihiin heerka danayntiinna iyo jacaylkiinnu haddii mid badiyo xiisaha waxa dhacaysa in xidhiidhkaasi dhammaado xitaa dumarka sida waalida ah u xiiseeya ragga ee markasta u sheega jacaylkooda xilli kastana la soo hadla waxa dhacda in ninku si dabiici ah uga fogaado una arko qof bilaa shakhsiyad ah haddaba markasta waa inaad gabadha u diidaa danaynta iyo xiisaynta badan waxaad arkaysaa inay jeclaysanayso marka qudha ay kaa maqasho kelmad naxariis leh waxaa jira wiilal badan oo dhib ku qaba inanta markasta la soo hadasha ee markasta daba socota haddaba su'aasha muhiimka ahi waxa weeye sideen u yarayn karaa xiisaha gabadhu haddii uu yahay mid ka badbadis ah haddii arrinkaasi dhibaato badan kugu hayo weliba aad ka baqayso inuu xidhiidhkiinna xumeeyo ha ku yarayn gabadha danaynta hana ka sii fogaan laakiin waxaad samayn kartaa inaad u muujiso jacayl iyo danayn badan waa inaad markasta ka warhaysaa xaaladdeedana weydiisaa waa inaad ula dhaqantaa isla sida iyadu kuula dhaqmayso waa inaad tustaa danayn saa'ida markanoo kale waxa dhacaysa inay dareento wixii aad dareemaysay markii ay xiisaha badan kuu muujisay intaas kadib iyada ayaa yaraynaysa xiisaha halkan qodobka muhiimka ahi waxa weeye isla marka ay yarayso iyadu danaynta inaad adna joojiso xiisaha badan haddii se aad sii wado waxa dhacaysa inay si 100% kaaga xiisa dhacdo hadhowna kaa tagto waa inaad garan kartaa goorta aad joojinayso tallaabadaas hal arrin oo kale haddii aynu ku darno kaasoo marka aad u diiddo gabadha aanay kaa fogaan karin wuxuu noqonayaa inaad ka ilaaliso xakamaynta maxaan ka wadaa xakamaynta waa inaad markasta maamusho gabadha oo jeclaysato inay kaaga amar qaadato wax kasta rag badan ayaa jecel inay xakameeyaan gabadha ay xidhiidhka la leeyihiin laakiin taas inta badan dhibaato mooyaane waxba lagama faa'iido dumarka qayb ka mid ah weliba intooda badani ma jecla xakamaynta waxayna jecel yihiin inay dareemaan inay gaadhi karaan go'aanada noloshooda haddiiba ay dhacdo in qofku ku qasbo wax aanay rabinna waxay dareemaan xorriyad la'aan waxaanay u badan tahay inay ka fogaadaan qofkaas laga yaabaa bilowga xidhiidhkiinna inay u aragto arrinkaas jacayl iyo danayn laakiin muddo kadib waxay dhibsanaysaa hadalladaada iyo maamulkaaga dhibaatada kale ee ay xakamayntu leedahay ayaa ah marka aad gabadh xakamayso iyaduna kaa yeesho xakamayntaas inay noqonayso gabadhaasi mid bilaa shakhsiyad ah oo aan isku filnayn waxayna ku tiirsanaanaysaa markasta ninka taasoo keenaysa marka ninku u baahdo garab istaag iyo cid la talisa ama daryeesha inaanu helaynin sababtoo ah isaga tiisa ayuunbay ku socon jirtay
dhibaatadaasna adiga ayaa geystay haddii aad ninka tahay, waayo waxaad u diiday inay iskeed isu maamusho oo shakhsiyad gaar ah yeelato. ugu dambayntii, nala wadaag mawduucan waxaad ka faa'iiday, sidoo kale ma jeclaan lahayd inaynu mawduuc kale ka diyaarinno hal wax oo haddii ay gabadhu ninka u diido aanu weligii ka tegaynin. aad baa u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.